iyadoo dhawaan u nahayd markii si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa ee caasimadda u ah Somaliland suldaanka guud ee qurba jooga Somaliland Suldaan Mahdi Cabdi Ibrahim ayaa suldaanku waxa uu ahaa mid maalimihii ugu dambeeyay ku sugnaa gebi ahaanba deegaanada hoos yimaada gobolada Awdal Salal iyo Gabiley suldaanku oo kulama gooni la qaatay shakhsiyaadka hal doorka u ah gebi ahaanba dadka deegaanadan iyo guud ahaanba kuwa Somaliland ayaa kulan waxa uu la qaatay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici martiqaadyo kala duwan oo loo sameeyay ayaa waxa kamid ahaa shakhsiyaadkii martiqaaday suldaanka ambassador sheyga oo ahaa safiirka u fadhiyay wadamada dibadda dalka aynu jaarkanahay Djibouti sidoo kalena ayna madasha ka maqnayn sheekhu beledka gobolka Awdal Sheekh Cabdullaahi Sheekh Cali Jawhar Boqorre iyo Suldaan Ibrahim Jaamac Samatar oo kamid ah salaadiinta waaweyn ee gobolada Awdal Gabiley iyo Salal si kastaba ahaatee suldaanka ayaa la filayaa inuu kulamo kala duwan la qaato hal doorka iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaanada kala duwan ee Somaliland oo jaamacadda magaalada Boorama